kusoo dhawaada daawadayaal xaqiiqooyin sax ah oo ku saabsan dalka intiina badan wax ka taqaanaan ee Jarmalka. Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalku waa wadan u dhisan dhinaca federaaliyadda wuxuuna ka kooban yahay 16 gobol. Juqraafi ahaan wuxuu wadanku ku yaalaa bartamaha iyo galbeedka qaaradda Yurub wuxuuna xuduud la leeyahay 9 dawladood waxayna kala yihiin Denmark, Holland, Belgium, Luxembourg, Faransa, Switzerland, Austria, Czech iyo Poland. Sidoo kale magaalo madaxda dalku waa Berlin. Wadanka Jarmalku markiisii hore waa u kala qaybsanaa isu keenintiisa iyo aruurintiisa ayaa dhamaatay sanadkii 1871 waxaana la kala qaybiyay dagaalkii labaad ee dunida ilaa 1949 ilaa 1990. Germany wuxuu leeyahay taariikhda ugu dheer ee qaaradda Yurub. Sidoo kale waxaa degan wadanka dad gaaraya ilaa 83 milyan. Sidaa la'aadeed wuxuu noqday wadanka ugu dadka badan qaaradda Yurub iyo wadanka ugu dhaqaalaha xoogan qaaradda Yurub. Dhaqaalaha Jarmalku waxaa la sheegaa inuu yahay dhaqaalaha saddexaad ee dunida. Waxaa la sheegaa in Jarmalku ay ka jiraan xukuumo iyo xeerar caalami ah sida in aan laamiga qashin lagu tuurin laguna candhoofin wadooyinka dhexdooda.